qiyaas nin ku dhex mushaaxaya xafiisyada FBI-da gacantana ku haya siraha ugu xasaasisan Mareykanka oo sirdoonka Mareykanka muddo dheer ku fashilmay inay ogaadaan dhaqdhaqaaqiisii qarsoon. Wuxuu muujiyay in hal qof oo kaliya awood u leeyahay inuu qaranka burburiyo asagoo dhex mushaaxaya xafiisyada sirdoonka ugu awooda badan bilaa cabsi. Wuxuuna si xeeladeysan u isticmaalay sanduuqyo qarsoon, waraaqado sirar ah, isagoona macluumaadka ugu halista badan siinaya Ruushka muddo 22 sano ah. Xogta uu bixiyay waxay halis gelisay nolosha shaqaalaha sirdoonka iyo howlgallada qarsoon ee Mareykanka. waa idin salaam saaxiibayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. intaan gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo channelka, laagtana aad ii saarto. Aynoo bilaawo markaan warbixinteena. Robert Philip Hansen wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka 18 Abriil 1944. waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa ilmo maskax furan leh oo xiiseynaya xisaabta, fiisigiis iyo cilmiga sayniska, taasoo ka caawisay fahamka sirdoonka iyo xogaha qarsoon. waxbarashadiisii sare iyo xirfadaha uu ka helay shirkado xisaabeed ayaa sidoo kale didabada u taagtay in xirfadiisii sirdoon, taasoo markii dambe ka caawisay inuu ku dhex milmo FBI-da. sanadkii 1976 Hansen wuxuu ku biiray FBI-da. shaqadiisii hore wuxuu ku saabsanay sirdoonka gudaha Mareykanka iyo ilaalinta xogaha qarsoon ee dalka. dadka la shaqeyn jiray waxay sheegeen inuu ahaa nin daacad ah oo xirfad sare leh. basaasnimadiisii bilowga waxay ka bilaabatay xogaha fudud, waraaqado qarsoon iyo sanduuqyo oo ku ridi jiray macluumaadka. qorshihii uu qaatay ayaana ahaa mid aad u xeeladeysan oo ka duwan shaqaalaha kale ee FBI-da. Hansen wuxuu si tartiib ah u bilaabay inuu siiyo Ruushka xogaha ugu halista badan Mareykanka, sida liisaska basaasiinta gudaha Mareykanka, howlgallada sirdoon oo gudaha iyo dibadda ka socda, sirta nukliyeerka iyo qorshayaasha difaaca qaranka. qaabka uu sirta u bixin jiray ayaana ahaa sanduuqyo qarsoon oo banaanka uu dhigo, waraaqado sirar ah oo gacanta uu ku qoro, falaash iyo qalab kale oo siraha ku bixin jiray si aan loo ogaan. muuqaal ahaan Hansen wuxuu ahaa shaqaale aamin ah, laakiin gudaha wuxuu ka ahaa basaas khatar leh. sababta uu u bilaabay basaaska waxaa ka mid ahaa lacag, awood shaqsi, dareen shaqsi ah oo ku saabsan awoodda iyo khiyaanada uu ku tijaabinayo FBI-da. markii sirdoonka Mareykanku uu arkay dhaqdhaqaaqyo shaki leh oo Ruushka u socda, wuxuu bilaabay baaritaano qoto dheer. macluumaad sirar ah oo muhiim ah ayaana si lama filaan ah u gaaray Ruushka, taasoo muujinaysa in qof ayaga ka mid ah uu macluumaadka bixiyay. FBI-da waxay fiirisay dhammaan dhaqdhaqaaqyada la xiriira waraaqadaha qarsoon iyo qalabka loo adeegsanayo gudbinta xogta, waxaana la isbarbar dhigay xogtii la bixiyay iyo shaqaalaha gudaha ee helay macluumaadka si loo ogaado qofka ugu suurtagalka ah. Hansen waxaa la geliyay baaritaan taxaddar leh, waxaana la raacay talaabooyin uu qaaday, taas oo ugu dambeyntii keentay in Hansen la qabto 18 bishii 2 2001. si degdeg ah ayuuna u qirtay dhammaan dambiyada. maxkamadda ayaana 15 dacwadood oo basaasnimo ku heshay, waxayna ku xukuntay xabsi daa'im ah. FBI-da ayaana xaqiijisay in Hansen uu ku dhintay xabsiga 5 Juun 2023 asagoona jiray 79 sano. Hansen wuxuu noqday mid ka mid ah basaasiinta ugu waxyeelada badan Mareykanka. sirdoonka Mareykanka waxaa laga helay xogaha ugu muhiimsan. kalsoonida gudaha ee FBI-da ayaana hoos u dhacday. waxay noqotay cashar muujinaya sida hal qof oo qura u halis gelin karo, iyo sidoo kale in hal qof oo kaliya awood u leeyahay inuu qaranka burburiyo asagoona dhex mushaaxaya xafiisyada sirdoonka ugu awooda badan. sheekadiisu waxay cabsi gelisay layaab iyo digniin la iloobin kara ku noqotay sirdoonka Mareykanka. waxaa muhiim ah in la fahmo qofka aad ugu kalsooni badan tahay mararka qaar inuu ku horseedi karo khatar.